magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa toos u la wareegay ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika xilli uu sii xoogeysanayo xiisada Villa Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed. ciidamadan ayaa la aaminsan yahay inay taageersan yihiin Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed oo hadda wajahaya culays uga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale ciidamada Koonfur Galbeed ayaa iyagana la geeyay duleedka magaalada Baydhabo si ay halkaasi difaac uga jiraan sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedi xilkas ah. sida xogaa aan ku wiileeno saddex ujeedo ayaa ciidamada Itoobiya loogu wareejiyay magaalada Baydhabo waxayna kala yihiin: 1 in doorashada Koonfur Galbeed oo toddobaadka soo socda lagu kala bixi doono ay ku dhacdo si nabad ah; 2 in magaalada gudaheeda dagaal ka dhicin oo aysan fursad helin mucaaradka Laftagareen; iyo qodobka saddexaad oo ah in ciidamada Koonfur Galbeed aysan ogaan gudaha magaalada waxa ka dhacaya waxaana lagu mashquuliyay duleedka magaalada. arintan ayaa u muuqata in magaalada Baydhabo ay ku dagaalami doonaan Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalkan uu geysto khasaare baaxad leh. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli dowladdiisa aysan gaarin go'aan lagu weerarayo magaalada Baydhabo ayaa loogu baaqayaa inuu arintan ka joogsado, sidoo kalena wada hadal uu ku dhameeyo xiisada taagan bedelkii dagaal uu ku qaadi lahaa Koonfur Galbeed. beesha caalamka, mucaaradka iyo qaar ka mid ah waxgaradka ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyay tala ah inuu ka joogsado dagaalka uu abaabulayo, isla markaana arintan ay ka dhalan karto saameyn aan laga soo kabsan doonin. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay abaabul xoogan ka waday deegaanada Koonfur Galbeed, waxaase abaabulku ugu xoogan uu ka socdaa magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay oo dowladda ay isugu geysay kumanaan ciidamo ah, kuwa kalena hadda ay ku wajahan yihiin. ujeedka ciidamada halkaasi loogu aruurinayo ayaa ah inay duulaan ku qaadaan Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed, isla markaana magaalada Baydhabo ay kala wareegaan. dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa maanta 2 urur oo ka mid ah ciidanka gorgor u dirtay magaalada Buur-Hakaba, kuwaas oo gaaray magaalada Walaweyn ee Shabeellada Hoose, waxaana ciidamadan ay ku biiri doonaan ciidan kale oo laga soo qaaday booliska sida militariga u tababaran ee ay dhistay Imaaraadka Carabta, kaas oo ay maamusho hadda Villa Soomaaliya. ciidankan ayaa qorshu yahay inay dhexmaraan masaafo dhan 90 kiiloomitir oo ay joogaan kooxaha argagixiso iyagoo u socda Buur-Hakaba si ay Baydhabo u weeraraan una fuliyaan damaca madaxweynaha. saraakiisha ciidamada lagu aruuriyay Buur-Hakaba ayaa maanta ku wargeliyay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka isku keenay inaysan haysan awood baabuur dagaal oo ay uga hortagaan kuwa Koonfur Galbeed iyo hub badan, ayna u baahan yihiin saanad xoogan, ciidan lug ah iyo gaadiid culus oo ka duwan kan Koonfur Galbeed. tani waxay keentay in ciidamada Turkiga ay tababaraan iyo hubka ay ku qalabaysan yihiin loo dhaqaajiyo Walaweyn, taas oo muujinaysa ku milmidda ciidamadan ee siyaasadda kala gedisan si la mid ah sidii Raas Kambooni.